Sheeko sheeko xariira shilin baa dhuustay gafanaa sheegay sheegaa maxawis. Beryaha ka mid ah waxa saaxiib ahaa dacawo iyo waxa saaxiib ahaa yaxaas. Yaxaasku webigu ku jira. Dawacaduna waxay u soo joogsan jirtay webiga agtiisa, biyahana way ka cabi jirtay, waana sheekaysan jireen. Waxa la yidhi beriga dacwadu may lahayn carab. Yaxaaskuna carab dheer oo qurux badan buu lahaa. Markaa dacwadu waxba may sheegi kari jirin. Mar walba waxay dhagaysan jirtay yaxaaska. Kadibna waxay u dhagaysan jirtay sheekooyinkiisa oo dhan. Kadibna way qosolkiisa daawan jirtay. Dacwadii waxay mar walba odhan jirtay Allah anigu haddaan carab lahaan lahaa yaxaaso wax badan baan kuu sheegi lahaa. Wax ma laha buu yidhaahdaa anaa kuu sheegi doona. Maalintii dambe ayaa dacawadii waxa dhacday reerkoodii walaasheed ayaa la aroosay. Waxa la yidhi aroos ayaa la samaynayaa. Dabaaldeg weyn baa loo samaynayaa walaasheed. Markaasi bay tiri Allah haddaan carab heli lahaa walaashay waan u heesi lahaa. Haddaan carab heli lahaa cuntooyinkoo dhan ayaan wada dhadhamin lahaa. Allah haddaan carab heli lahaa waan qusqusli lahaa waan mushxaradi lahaa ilalihiidaasan guri lahaa. Markaasay tiri dadkii oo dhan bay wada weydiisatay yaa carabi amaahinaya qof walba wuxuu yidhi maya carabkayga waan u baahanahay. Marba mid bay u tagtaa xayawaankii carab maadii amaahin dhurwaayo maya waan u baahanahay. Waxay u tagtay libaaxo carab maadii amaahin may carabkayga kama maarmo. Kuwii ay taqaanay oo dhan bay u tagtay marba mid bay u tagtay cidna way iska amaahin weyday carab. Waxay tiri Allah kii yaxaaska ahaa ee biyuhu ku dhex jiray kaasi carab halkuu ugu baahan yahay isagaan u tegaya. Markaasay ku tiri yaxaaso saaxiib waxa weeyaan way badan baynu saaxiibba ahayn. Waxaan rabaa maanta inaad arrin baa iga kaa soo gashay inaad arrintaasi ii oofiso. Markaasuu yidhi maxaa kugu dhacay? Waxa weeyaan dadka saaxiibada waa inay is caawiyaan. Markaa waan ku caawinayaa ii sheeg. Waxay tiri malaha ma caawin kari maysid waan ku caawinayaa. Malaha anigu baa moodaya inaan saaxiib kula ahay malaha adigu saaxiib ilama tihid may saaxiib baan kula ahay. Bal waayo waan ku tijaabinayaa. Markaasuu ii sheeg wax kastood u baahan tahay waan ku siinayaa. Yaxaaso waxaa jirta walaashay baa la aroosayaa. Marka la aroosay waxa weeyaan waa inaan u heeso, waa inaan u mushxarado, waa inaan cuntooyinkeedoo dhan ee la karinayo wada dhadhamiyo si cunto fiican martidu u hesho. Laakiin dee anigu carab ma lihi. Adiguna saaxiibkay baa tahayo haddaad intaa ii samayn lahayd haddaad biyaha ka baxda waad dhimanaysaa. Marka biyaha kama dhex bixi kartid. Markaa saaxiib dee waxaan u baahnaa carabkaaga maad ii yara amaahine. Markaasuu yidhi Allah dee carabkayga kama maarmayee. Laakiin saaxiibaday baa tahay oo waxa weyn dadka saaxiibadii waa inay is caawiyaane waan ku amaahinayaa imise cishaad u baahan tahay. Waxay tiri waxaan u baahanahay 3 cishaan u baahanahay. Maalinta hore arooska, maalinta labaad ee xafladda dambe iyo maalinta ugu dambeysay la duceynayo 3 cisho baan u baahanahay. Markaasuu haddaba 3 cisho saacadna ha ku kordhin ii soo celi. Dawacadii baa tiri ballan weeyi ballan. Laakiin dawacadu saynu wada ognahay ballantiya waxaa ma taqaano nafteeday jeceshahay. Waa yara khaayimad. Marka waxa weeyaan waxaan ay sheegayso marna run kama sheegto. Marka yaxaasku laakiin ma yaqaano isagu wax ku dhex jira aan webiga ma oga. Waayo xayawaanada kale oo dhan way yaqaanaanoo qofna ma aaminayo dawaco. Waayahay buu ku yidhi wuu u dhiibay. Wakaa carabkaygii quruxda badnaa ee dheera ee guduudna ii soo celi. Mase tiri waayahay waan kuu soo celinaya aad baad u mahadsan tahay. 100% waad mahadsan tahay. Si fiican baad ii gashay. Waayahay way qaadatay dhab carabka bay isku nabtay. Markay saa iskugu nabtayba way qososhay qosol. Haddana way heestay way yaabtay Allah carabku shaqo badan buu qabtaa. Haddana way mushxaraday ilali Allah fiicana
haddana gurigii bay tagtay, cuntay dhadhamisay. Allah, cuntadu dhanaana macaana, awal way liqliqi jirtay. Markaas arooskii baa dhacay, dadkii oo dhan baa u sheekaysay, dadkii baa ka yaabay. Ayaa dawaco, waa maxay maanta sidaadii hore ma tihiin, waad sheekaynaysaa, waad furfuran tahay, waad faraxsan tahay. Haa, waa walaashay arooskeeda. oo carab halkeed ka heshay, maxaa idinka galay, meeshaan ka helay, waan soo helay carabo, saaxiibkay bay soo amaahiyey. Allah, marka xayawaanadii baa ku yidhaahdeen, dawacooy, saaxiibka hadda carabka goormaad u celinaysaa? Mise tiri, uma doqon baan ahay, anigoo bilaa caraba baan carab helay, xaggeen ugu celinaya? Weligay uma celinayo. berigii dambe ayaa waxay haydeen, waxaa la yidhi ninkii yaxaas marba biyuu ka soo baxa, wuu fiiriyaa, banaanku u soo baxa, talo dawacadii may soo socotaa, talo ma kuu soo wada carabkii, ma arko. Shimbiruhu weydiiyaa, shimbirow maad aragteen dawaco? Masalan waa tii halkaa ka heesaysay, ka qoslaysay. Markaasuu yidhi, Allah, waxaad ku tiraahdaan wuu ku sugayaa yaxaaskii. Wuxuu ku yidhi, ballantii maxaa dhacday? Bil baa ka soo wareegtay, labaa ka soo wareegtay, sanadaa ka soo wareegay, way soo celin weyde. Markaasuu yaxaaskii maalintii dambe daanyeer arkay. Daanyeerow, dawaco u tag, waxaad ku tiraahdaa, dawacoy carabkaygii soo soomaad celin waayen, adigana biyaha webigu waa kaa xaaraan, haddaan ku arko adigoo webiga soo galay waan ku cunaya. Marka waxaa la yidhaahdaa berigii hore yaxaasku carab buu lahaan jiray dheer, dawacaduna bilaa carab bay ahayd. Marka carabkii yaxaaska dawacadaa ka qaadato, ka khiyaamaysay. Iminka haddaad aragto yaxaaska afkiisa carab ma laha, ilka keliyuun buu leeyahay. Markaa sheekadiina halkaasay ku dhammaatay.